cusub oo loo furay ardayda Soomaaliyeed ayaa laga hirgeliyay waddanka Uganda. Macadkan oo la yiraahdo Bayaan Institute.com ayaa waxaa dhigi doona macallimiin ajaanib ah oo ardayda wax ku bari doona luqadda Ingiriiska. Macadkan ayaa ardayda wax ku bari doona qaab online isagoo ardaygu isticmaalayo mobilkiisa ama laptop. Qof kasta wuu weydiin karaa Google-ha Bayaan Institute.com kadibna wuxuu booqan karaa website-ka macadka. Haddaba si aad u ogaatid koorsooyinka uu bixiyo macadku ku dhufo program structure. Sidoo kale haddii aad rabtid xog dheeri ah inaad ka ogaatid macadka ku dhufo qaybta contacts-ka si aad ula xiriirtid maamulka macadka. Maamulaha macadka Mr. Cabdikhaliq Maxamed Maxamuud oo ka hadlay madasha furitaanka macadka ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qaabka uu u shaqeyn doono macadku. We have opened officially today the institution of Bayaan Institute.com. We shall be offering courses of Diploma of Science and Technology, Business, Socio-economic and Social Science. We should also be having a certificate of 6 months. I'm ready to teach you what we need to produce an educated society. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida daafiyada ka joogtaan waxaan idinku soo dhaweynaynaa macadka Bayaan Institute.com. macadkan Bayaan Institute.com waxaan u farnay ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida daafiyada ka joogaan gaar ahaan ardayda Soomaaliya joogta oo maadada wax ku barashada luqadda Ingiriiska dibka ku qaba. Baan u furnay macadka Bayaan Institute.com. waxaanu bixin doonaa koorsooyinka meeshan ku qoran Science and Technology, Business, Socio-economic and Social Science. waa saddexda faculty oo hadda miiska noo saaran oo diyaarka ah. waxay leeyihiin sub courses ama maadooyin koos farcama sida BBA iyo waxyaalo la mid ah. markii aad booqatid website-ka Bayaan Institute.com ama Google-ha ku qorto Bayaan Institute.com Google-ka baad ka helaysaa website-ka kadibna waxaad helaysaa wax kasta oo Bayaan Institute qaabku u shaqeeyo iyo wax kasta oo ku diyaara fiiga wax kasta wax ku helaysaa website-ka. marka si kooban baa waxaan rabaa inaan uga hadlo macadka Bayaan Institute.com. macadyo badan baa jiro oo Soomaalidu leedahay oo furan oo online ah. wax jiro kuwa offline oo Soomaaliya meel kasta ka furan. laakiin anagu maxaan kaga duwanahay? Bayaan Institute.com waxay kaga duwan tahay waxaan rabnaa inaan soo saarno arday wax ku baranaya luqadda Ingiriiska. macallimiinta wax baraya dhan waa ajaanib oo wax ku baraya luqadda Ingiriiska. qofkii isagoo maadadiisa baranaya una wax practice gareynaya luqadda Ingiriiska practice gareynaya. midda labaad annaga wax ku baraynaa online oo qofku wax ku qaadanaya aaladda Zoom iyo Microsoft meel kasta dunida daafiyada ka joogo imtixaanaadka coursework-yada wax kasta wax ku qaadanaya online isagoo gurigiisa jooga. ardaygu wax ku baran karaa telefoonkiisa wax ku baran karaa laptopkiisa labadaba. Bayaan Institute qodob muhiimadda labaad aan rabno inaan soo saarno waxay tahay ardayda dhigata Bayaan Institute.com markay dhameeyaan semester 1 iyo semester 2 labada semester oo horeeya ay dhameeyaan labada semester oo dambe waxaan guda galeynaa sida aan ugu raadin lahayn scholarship caalami ah. ha noqoto waddanka Uganda oo hadda aanu ka furnay ha noqoto oo macallimiintiisu ay noo tahay oo centerka noo tahay ha noqoto wadamo kale Europe ha noqoto Mareykan ha noqoto Asia ha noqoto meel kasta ay noqoto in ardayga scholarship la raadino. sidoo kale Bayaan Institute.com waxay gaar la tahay in ardayda u raadino shaqooyin isagoo qofkii macad dhameeyay oo diploma haysta waxaanu bixin doonaa diplomadaas ardayga isagoo haysta inuu diplomadiisa ku shaqaysan karo oo ardayga shaqo la raadino. mar rabno kaliya inaanu arday helno aan wax barno oo sidaas ku dhaafno. waxaan rabnaa inaan soo saarno arday wax kasta awoodi karta. waxaan rabnaa ardayga inaan barno siduu isagu shaqo u raadsan lahaa scholarship. annaguna inaanu kala shaqeyno. waxaa jira malaayiin jaamacado ah oo bixiya scholarship bixiya baa jira inaanu kala shaqeyno. midda saddexaad Bayaan Institute wuxuu ka register garaysan yahay dawladda Uganda. uu ka register garaysan yahay waxa register garaysay Uganda Registration Bureau Services baa register garaysay waa macad register garaysay dawladda Uganda u register garaysan. shahaadooyinka iyo dokumentiyada aan bixinayno kulli waxay noqon doonaan kuwa dawladda Uganda ay soo asasay oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare soo maray. haddii ilaahay waxaanu ka codsanaynaa Soomaalidu meel kasta ay joogaan waalidiin ha noqoto dhalinyaro ha noqoto waalidiintu inay caruurtooda iyo waalidiinta raba inay fursadan ka faa'iideystaan inay ku soo biiraan bahda Bayaan Institute.com.
marka si aad uga biirtid bayaninstitute.com waxaad booqanaysaa bayaninstitute.com kadibna markii aad booqatid bayaninstitute.com website-kaad gelaysaa qaybta contactiga baad ag tegaysaa waad nala soo xiriiraysaa wuxuu leeyahay website-ka sida aad arki doontaanba sign in iyo sign up buu leeyahay oo qofku iska register garan karo markuu qofku is register gareeyo anaga automatic wax noo soo systemku soo gelaya ardayga cusub ku soo biray bayaninstitute.com waanu arkaynaa marka qofkii raba si dhaqso ah degdeg inuu la soo xiriiro bayaninstitute.com WhatsApp ku naga soo wici karaa numberka xaggan ku qoran ama hadduu si fiican u muuqan waa numberka 256 709 08 6146 numberkaas WhatsApp-ka uu qofku degdeg nooga soo wici karaa qofku raba inuu dhaqso ugu soo biro ama information ku ogaado badan waxaan ku bari doonaa dadka sidaan sheegnay online kameradan dadku wax ku bari doonaa markasta fasiixa uu qofku ogaan karo waxaan isticmaali doonaa whiteboard kan oo kala ah iyo kuwa kale oo la mid ah si ardayda aan ugu sharaxno waxyaalaha fahmi waayeen tusaalahan maadooyinka xisaabta u baahan calculationka iyo waxyaalaha kale oo la midka ah hadda waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo arday kamid ah bayaninstitute.com oo ardayda online wax ku baranayso oo isla Uganda jooga waa Faadma Cabdiqaadir ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم بعد waxaa online ka macadka bayaninstitute.com oo ku yaala Uganda waan ku faraxsanahay inaan kamid ahay ardayda wax ku barto online ka macadkan waa mahadsantihiin